shaqadan qabanay waxay ahayd imika waxaan diyaarsanay qaybteena basekeena nidhi kadibna basekeena tusaale ahaan oo kale haddaynu xasuusano halkan wuxuu ku leeyahay waxa la yidhaha titlku wuxuu ahaan jiray ciwaanka halka sare kasoo muuqda ayuu inoo ahaan jiray marka titlekeenu wuxuu inoo noqon jiray ciwaanka yara halkan sare kasoo muuqda ayuu inoo ahaan jiray marka halkan ugu sarreyso tusaale ahaan waxay nooga soo muuqata maxay document bay nooga soo muuqataa document waxaan rabnaa inaynu bedeli karayno markaynu pageska kala joogno waxaan leenahay halkan markaad joogtid waxaad noo samayn doontaa blogayga waxaad noogu samayn doontaa title loogu samee blogayga waxaad noogu samayn doontaa title bay nidhi kadibna waxaan odhan doonaa sidii caadiga ahayd waxaad noo samayn doontaa nd blog baad noo samaynaysaa bloggeena waxaynu samaysanay title kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noogu samaysaa blogayga waxa la yidhaha maxay nd blog ayaad noogu samaynaysaa kadibna waxaynu tusaale ahaan oo kale kan wuxuu inoo noqon doonaa ciwaankan ugu sarreeya wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan harhub event management pagekayga sare wuxuu ahayn doonaa harhub event management buu ii noqon doonaa intan markaan u sheegay halkan hore waxaan ka horreysiiyey blog title halkan waxaynu ka dambaysiinay maxay nd blog ayaynu ka dambaysiinay intan haddayn save garaysano in save nidhaahno stepta inoogu xigtee samayn doonaa waxa weeye waxaan tegi doonaa templateskeena kadibna waxaynu ka dhex samaysan doonaa another folder kale folderkeena waxaan waxa la yidhaahdaa maxay events baa la yidhaahdaa folderkeena waxaan waxa la yidhaahdaa maxay events baa la yidhaahdaa folderkan wuxuu igu jiraa maxay templateska folderkaygan wuxuu igu dhex jiraa maxay templatesku igu jiraa folderkaygan events baa la yidhaahdaa waxaynanu ku dhex kaydinay maxay gudaha templateskeena ayaynu ku kaydsanay marka eventskeena gudihiisa markay nimaadno hal file bayn ka dhex samaysanay tusaale ahaan waxaad noo samayn doontaa index.html baad noo samaynaysaa index bayn dhex samaysanay indexkeennana wuxuu noqonayaa maxay html page buu inoo noqon doonaa html pagekeena waxaan isla naqaanay waxaanu ku bilaaban jirnay html code laakiin hadda ku bilaaban mayna waxaan odhan doonaa waxaad noo samayn doontaa marka ugu horreysa waxa la yidhaahdo blog content baad noo samaynaysaa waxaad noo samaysaa blog content baad noo samaynaysaa blog contentgeena markaan samaysano mar labaad waxaan odhan doonaa qaybtan waad noo xidhi doontaa waxaad noogu samayn doontaa waxa la yidhaha nd blog baad noogu samaynaysaa waxaan nidhi waxaad noo samayn doontaa blog content kadib waxaad noo samaynaysaa maxay nd blog baad noo xidhisaa kadibna tusaale ahaan gudihiisa waxaan kasoo dhex saarnay h1 kadibna waxaan nidhi this is index page kan wuxuu inoo noqon doonaa pagekayga indexka ahaa fariinta inoo soo muuqanaysaa waa sidan halkan sare blog baynu ka samaysanay halkan waxaynu ka xidhnay maxay bloggaan samaynay waynu save garaysanay intaasi aynu test ugu samayno waxaan tegi doonaa bal tusaale ahaan qaybteena viewska kadibna waxaan odhan doonaa function noo samee function saynu samayno dhif baynu odhan jirnay magac baynu u bixin jirnay functionkeenan wuxuu diri doonaa request ayuu diri doonaa kadibna waxaan odhan doonaa return waxaad samayn doontaa render waxaad soo celin doontaa waxa ku jira requestigayaga codsigayaga kadibna waxaad wax nooga soo akhriyi doontaa faylkayaga la yidhaahdo index.html laakiin mid baynu ognahayo indexkeenu kuma dhex jiro folderkeena templates la yidhaha laakiin wuxuu kusii dhex jiraa folderka la yidhaha maxay events marka maadaamuu events ku dhex jiro halkan waxaan odhan doonaa events slash baynu odhan doonaa kadibna sidaa waxaanu ku tilmaamaynaa in laynoo soo akhriyo faylkeena la yidhaahdo maxay index waxaan usoo gaabsaday request haddii kalena waynu iska dhammaystiri karaynaa halkan request waxaynu u isticmaalaynaa markay doonayno codsigeena ayaynu isticmaalaynaa marka requestigan wuxuu inoo soo gaabinayaa maxay codsigeenii haddii kalena waynu dhammaystiri karnaa intaa markay qabanno stepta kale ay samayn doonaa waxa weeye faylkeenu ma laha wax loo yaqaano admin.py ma laha wax loo yaqaano baan ujeedaa urls.py kadib markaa waxaan samaysan doonaa faylkeena waxaan noqon doonaa waxaad noogu bixisaa urls baad noogu bixin doontaa wuxuuna noqon doonaa maxay py file ayuu inoo noqonayaa calaykum salaam cabdicasiis khayr nool waa idin imanaya marka urlskeenan waxaan odhan doonaa keeni kale tegi doonaa harhub kadibna waxaan tegi doonaa urlka kadibna waxaan soo copy garaysan doonaa codeka halkan ku jira intanaan soo qaadanaya copy baan idhi copy markaan idhaahdo kaygii horaan iman doonaa waan ku baasti garaysan doonaa markaan ku baasti garaysto waxaan odhan doonaa function baan soo samaysanay functionkaygii path baynu samaynaynaa dariiqaynu ka heli karno dariiqeena marka hore waxaan idhi meel maran buu noqon doonaa ama pageka ugu horeeya kadibna functionkeena magaciisa home baynu bixinay kadibna waxaan idhi magacaanu ku aqoonsan doonaa wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan home buu noo noqonayaa
marka mar labaad halkan ay nimid kadibna maadaamaan home la garanayn home waxay la mid tahay from halkan markaan joogno gaar ahaan qaybta la yidhaha fuska functionka noo samaysan ee la yidhaahdo maxay home bay la mid tahay marka waxaa laynoo soo import gareeyey functionkeena la yidhaahdo maxay home baa laynoo soo import gareeyey keena kale ee harhab iyo aralkiisa hadday nimaadno isaga baas bayn daba iman jirnay kadibna waxaan odhan jirnay include failkeedan wuxuu la shaqayn doonaa failka soo socda then baas baan leeyahay baaskaygu marka hore waa meel maran baan idhi kadibna waxaan idhi wuxuu la shaqaynayaa failkaygani include waxaa ka qayba failka soo socda ee la yidhaahdo maxay eventis.url marka magacan eventis aan isticmaalayaa wuxuu ka yimid waa magacii maxay applicationkayga waa magacii applicationkeena ayuu ka yimid halkan aynu codeka ku qoraynaana waxa weeye maxay qaybteenii projectka haddaynu dib u yar tastigarayno control z aynu idhaahno kadibna aynu dib nidhaahno noo eega dib haddaynu eegno aynu idhaahno manage wuxuu igu yidhi ma jiro maxay url urlka waxaa ka tageen maxay s bayn ka tagnay marka staa haddaynu ku darnay safe nidhaahno hadda wuu sixi doonaa commandkeena control z bayn c bayn nidhi kadibna waan iska kala ergaraynay run server bayn dib u dalbanay failkeeni wuu inoo soo kacay haddaynu tastigarayno in idhaahno no tijaabi aynu halkan taabano waxay noo soo baxay maxay this is index page marka maadaama index page yahay aynu doonayno inuu inoo shaqeeyo horta waxaan ognahay halkan dacalka gidaarku u dhow yahay marka haddaynu doonayno dacallada inuu kasoo durko waxaan ku yar noqon doonaa base.html kadibna naafka dushiisa waxaan odhan doonaa halkan naaf baa igu dambeysee waxaan odhan doonaa waxaad ii samayn doontaa file la yidhaahdo blog content waxaad noo samayn doontaa blog content blog content baynu leenahay kadibna halkan hoosena waxaan odhan jirnay waxaad noo samayn doontaa maxay nd blog bana inagu samaynaya kadibna halkiisa sarena waxaan odhan doonaa wuxuu noqon doonaa horta container dacallada kasoo go-a buu noqon doonaa xagga sarena waxaan rabaaba inuu ilaa 3 kasoo go-aba margin top kadibna intanaan eegaya markaa intan haddaynu eegno outputkeeniina halkan aan yar refresh garayno indexkeeni baa still saas inoogu shaqaynaya waxaan odhan doonaa markaa isbedel si aynu samayno haddii blog content aad noo samaysay halkana bloggeeni laynooga xidhay indexkeeni tegi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa si aynu uga shaqaysiino halka sare waxaad noo samaysaa failkaygan wuxuu soo dhexlayaa failka halka sare yaala oo wuxuu samayn doonaa extendis wuxuu inoo dhexli doonaa failkeena la idhaha maxay base.html intan hadday samayno safe nidhaahno kadibna xogteena eegno halka sare waxay nagu soo biiray maxay harhub home welcome user login iyo maxay logout bay nagu soo biirtay marka maadaama aynu qaybtii sare soo dhaxalay oo qaybtii sare ay noo timid waxaynu odhan karnaa hadda waynu sii wadi karaynaa si aynu sii wadno markaa waxaynu odhan doonaa indexkeena aynu koodhkiisa sii wadi doonaa container waxbaa ka qaldan containerku waa inu dacallada ka go-o dee soo saamahayn marka gidaarkuu ku dhegsan yahay haddaad arkaysaan markaa table error baa jiray haddoo kale space kasoo kacay gidaarkeeni marka containerkeeni markaan samaysanay ee hadda containerkeenu saa inoogu diyaarsan yahay waxaan odhan doonaa hadda waxaan u baahannahay xogtaydii ama daytadii meesha lagu soo bandhigay si dayta laynoogu soo bandhigo halkaygan kama arki karaysaa laakiin halkaas sare titleku markasta way isbedeli doontaa iyadana way la socon doonaa waxaan samaynay markaa indexkeeni bay ku noqonay in yar indexkeena xogtan aynu soo bandhigayno waxaan idhi marka ugu horeysa waxaad noo samayn doontaa row baad noo samaynaysaa rowgayga markaad noo samaysana mar labaad waxaad noo samayn doontaa column bayn idhi columnyadu 12 bay ahaan jireen soo saamahayn laba haddii loo qaybiyo maxay noqdaan 6 soo saama markaa medium device haddaynu haysano waxaan odhan doonaa wuxuu noo noqonayaa maxay 6 buu noo noqonayaa kadibna dhif kaleyn samaysanay dhifteenna waxaan idhi tusaale ahaan oo kale waxay noo hayn doontaa wax la yidhaahdo list group bay noo haynaysaa waxay noo hayn doontaa maxay list group ayay noo hayn doontaa list groupkeennan markay samaysano waxaan ku dhex jiraa koodhka indexka
waxaynu ka bilaabi doonaa list group bayn samaysanay kadibna anchor tag baynu samaynay anchor taggeena wuxuu qaadan doonaa class la yidhaha list group item action ayuu qaadanayaa marka waxaan samaynay waxaad noo samayn doontaa bayn nidhi list group baad noo samayn doontaa list groupka markaad noo samaysid anchor tag baad noo samayn doontaa anchor taggeena classku qaadanaya waxa weeye wuxuu qaadan doonaa list group item buu qaadanayaa item markuu qaato mar labaad wuxuu qaadan doonaa list group wuxuu noo qaadan doonaa waxa loo yaqaano list group item action list group item action bay samaynay kadibna waxaan nidhi intaas noo samee intaa markaan samaynay gudaha list groupkeena waxaynu ku dhex qorannay koodhka yare soo socda koodhkeena waxaan nidhi tusaale ahaan oo kale waxaad noo samayn doontaa h5 waxaad noo samayn doontaa sidoo kale image waxaad sidoo kale noo samayn doontaa maxay laba shay oo smolla ama saddex shay oo smolla marka kuwa ugu horreeya haddaan samaysto unaan h5 idhaahdo tusaale ahaan mar labaadna aan idhaahdo waxaad ii samayn doontaa image sawirkeena mid soo akhriyaya sawirku src buu qaadan jiray sidiisaba mar kalena waxaan idhi waxaad ii samayn doontaa tusaale ahaan small baad ii samayn doontaa tag yar oo inoo yaraanaya kadibna waxaynu samayn doonaa xogteena inay soo akhrino haddaynu ku noqono functionkeennii waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa variable la yidhaahdo eventskeenu wuxuu soo heli doonaa modelkeennii la odhan jiray maxay eventska wuxuu inoo soo heli doonaa modelkeennii la odhan jiray eventska gaar ahaan maxay objectskiisii dhammaantood intan marka laynoo soo helo halkan waxaan odhan doonaa maadaaman events la garanayn from markaad joogtid gaar ahaan qaybta la yidhaha modeliska waxaad soo import garayn doontaa maxay events ayaad soo import garaynaysaa halkan ay niman doonaa comayn odhan doonaa curly braces baan furan doonaayo waxaan odhan doonaa haddii lagu weydiiyo events waxay la macno yihiin maxay events bay leeyihiin marka halkan waxaynu ku samaysanay waxa weeye dictionary yar baan samaysanay dictionary-geenana wuxuu inoo hayaa in eventsku la macno noqon doono maxay isla events kadibna for loop yar baynu samayn doonaayo waxaan odhan doonaa maadaamay doonayna ilaa inuu columnku inoo wareego waxaan odhan doonaa for waxaad noo samaysaa forkayga waxa ka soo akhri doonaa eventska wixii ku jira maxay in events kadibna halkan waxaan odhan doonaa tusaale ahaan kan ugu horreeya waxaan odhan doonaa waxaad soo akhriyi doontaa eventskayga markaan joogno gaar ahaan maxay eventigu wuxuu lahaa maxay title mar labaadna waxaan odhan doonaa waxaad inoo soo akhriyi doontaa eventska markaad joogtid gaar ahaan eventskeenu wuxuu lahaan jiray waxaa la yidhaha maxay photoduna waxay lahayd maxay url ayay noo lahayd intan markay samayno forkeenna waxaynu ka xidhi doonaa halkan hoose hal dhifun baa iga sarrayn doontaa halkan markaan joogo waxaan odhanayaa waxaad ii samaynaysaa maxay nd forty baa lay xidhayaa for loop baa lay soo furay halkan waxaan idhi waxaad samayn doontaa nd forty aad noo furtay ayaad noo xidhi doontaa intan haddayn save garaysano hal error bayna qabsan doonaa errorkayna qabsanaya waxa weeye waxaan haysanaa folder la yidhaha images soo sama imageska halkiisanaan iman doonaa halkan bannaan baan iska imid kadibna folder cusub ii samee baan idhi halkan aan imid kadibna folder cusub baan samaystay folderkayga waxaan u bixiyey media kadibna folderkayga images la yidhaahdaa soo qaadi doonaa mediahaan dhex geynayaa waxaan samaystay folder la yidhaahdo media kadibna folderkayga images la odhanayay ayaan kusoo dhex koobi garay haddaan hadda save gareeyo koodhkan still waxay naga dhinaanaya intii yareeday noo ogolaanaysay in imageska ay soo akhriyi karayno marka haddii url-keena ku noqono intan aynu u baahnaan doonaa inaan qoro waxba isku daalin maayo intan urlka okay labadan file sanaan soo qaadan doonaa okay labadan copy baan idhi kadibna waxaan ku darsan doonaa url-kii uu lahaa projectgeenu kuwii applicationka ma aha kuwa projectgan ku daraynaa kuwa projectka markayn intan ku darsano mar kale waxaan leenahay laynkan hoosena waan soo qaadan doonaa laynkan wuxuu iga bilaabayaa if hadday sidaasi saa la mid noqoto xogtaa ii soo qaad kadibna isagana waan keeni doonaa halkan halkan aan odhan doonaa if okay okay sure hadda wax error inaanu jirin baan filaynaa okay intan markay samayno dan wayn iskaga socon doonaa okay that is
lines code sidoo qornaan jireen ayaynu wax ka qaladnay marka halkan markay nimaadno okay if condition buu ahaan jiray halkaas ku saxsan yahay fariinta la soo daabacayana waxaan oran doonaa sr saasin ku deyn way inta markay sameeyno waxaan tagi doonaa settingskeena kadibna settingskeena waxaan ku darsan jirnay 17 iyo 18 waxaan ku darsan doonaa labada file ee halkan inoogu qoran ee inoo muuqda marka labada file 18 iyo 17 lagu qoriyay waa kuwan iyaguna waxaan ku darsan doonaa media URL ku la mid noqon doonaa media root kuna wax la mid noqon doonaa base dir media marka intaan aan ku darsan doono waxaan leenahay media URL kaygu wuxuu la mid yahay waxaa noogu jira folder kayga la yiraahdo /media okay media root keenu wuxuu la mid noqon doonaa ama root ka meesha laga soo akhriyo doonaa wuxuu la mid noqon doonaa base dir buu la mid noqon doonaa gaar ahaan folder keena la yiraahdo maxay media inta markaan ku soo darsano waynu wada save gareysan doonaa wixii code hadii kalena auto save ay noo furan oo inta eegina inta badan inta hadeen qabano waxaan oran doonaa shaqada balse aynu test gareyno wayn ka sali doonaa control c baynu niri kadibna dib baynu run gareynaa wax error ma soo haysto laakiin haddaan eegon test yiraahdo sir wixii soo dhigay maxay labadii dhacdo wixii soo dhigay sawirkii iyo maxay sawirkii halkan sarena wixii noo soo dhigay title-kii iyo maxay title-kii bay noo soo bandhigay marka hadda waxaan haysanaa maxay labadeeni event baynu haysanaa eventigu xogii kale u lahaa ee ka badnaa iyagana waxaynu ka sii raadin karnaa xaggan hoose aan oran karnaa indagaska eventiga iyagu tusaale ahaan kale wuxuu lahaan jiray date ama meel uu ka dhacayo marka haddeen idhaahno eventiga waxaynu u baahanahay tusaale ahaan datekiisii wuxuu inoo sheegi doonaa datekiisii halkuu ka dhacayay ka event date bay nidhi okay datekaas inaan lagu haystaa laga yaabaa laakiin maybe waxaa jiray haddaan xasuusto eventiga wuxuu lahaa wax la yidhaha location marka waxyaabahan u baahannahay oo dhan halkan xabad xabad ugu sheegi doonaa marka inuu inoo soo akhriyaynu eegaynaa oo inoo soo wada bandhigo halkaasaynu kasii wada